waxaa runtii maalmihii u dambeysay yaab leh in guddoonka golaha shacabka oo si cad uu yiraahdo shaqada golaha arrimaha ku saabsan doorashooyinka aqalka sare waxba kuma leh annaga asxaan u sameyn jirno u yeeri jirno waa hadal duuban oo jira waxaan ka xumahay gudoomiye mursal oo saaxiibkay ah oo muddo dheer aan naqaanay fahamka noocaas ah in uu maskaxdiisa ku jirto iyo inuu dan kale leeyahay garan maayo fahamna ma aha saas leeyahay waa aqoon darro kuma tuhmaayo laakiin in uu sidaa u fahmo oo dadka uu la hadlayo uu moodo dad aan waxba kala garanayn maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya waa laba aqal hoose iyo aqal sare oo iskor joogteynaya marka xeerarku waxay ka imaan karaan aqalka hoose waxay ka imaan karaan aqalka sare waxay ka imaan karaan xukuumadda waxay ka imaan karaan dadweynaha sida dastuurku qoran laakiin xeerarka marka la ansixinayo aqalka hoose markuu ansixiyo waa inuu aqalka sare u gudbiyaa wax ka bedel ku sameeyaa ama sidiisa ku waafaqa markaas ay ka dib la celiyaa oo markaa madaxweynuhu uu ku soo saaraa maaragtay faafin rasmi ah marka xeerar maalmo dhaweed aad loo sameynayo oo habraaci aan dhan aan marin inay mari waayaan mararka qaarkood haddii siyaasad looga jeedo warbar waa la sameeyaa laakiin haddana lala soo indha adag yahay in la yiraahdo loogama baahna aqalka sare inay wax dhahaan xukuumadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiyana runtii aan ka aragnay la dhaqan aan fiicnayn aqalka sare oo weliba ah aqalka u muhiimsan marka laga hadlayo dowladda federaalka maxaa yeelay aqalka sare waa aqalka matala dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa meesha isku haysta dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed oo saldhigga u ah in laga soo qaado waxaan muhiim ahayn talooyinkooda la qaadan waayo khatartii ay arkeen la tixgelin waayo sidoo kale munaasabadihii qaranka maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo lagu maamuusi waayo gudoomiyaha aqalka sare runtii waxay abuuraysaa arrin aan wanaagsanayn oo bulshada Soomaaliyeed ku abuuri karta kalsooni xumo marka waxaan u rajaynayaa khaladaad waa dhacaan caanada todobadooda la qabtaa wixii dhacay anigu maxay u dhaceen ma oranayo laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo mas'uul ah inay tallaabooyinka la qaadayo laga fiirsado haddii markaas intay dhacaan ay khalad dhacaan si degdeg uga soo